tababarkan ku saabsan horumarinta deegaanka ee lanqabadi xubno ku tirsan ururka horumarinta deegaanka ee Dedo iyo By Women iyo waliba la bardo doone horumarinta deegaanka sida fayadhowrka biyo iyo badqabka dhirta waliba inkoreyntii meel ku hadlay aana kumida dhalinyarada ku qayb galeen tababarka ee iska jaran ururada By Women iyo Dedo. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اللي رأي مجاي مختار نور أيان له أو مدح توبرد أورك الددو جي كم يبقى ميل رئيس توبرني مقب صومي مجال بيدو أو تاريخ ذاته تومي أفرت باللي حد لما كل ما تنك توبر كاسيتي أو أورك الددو أورك الدجان كشقيوة وسكوت سدي ميل رئيس حلوة يدرس الدكتور oo ka saabsan arrimaha environmentalka iyo meel raayis sanitationka oo u sahnin qaban qaabi oo meel raayis muddo 3 maalmood igeekan bilawday barnaamijku way qaadayay ururka By Women Association Network oo geeka hoolka xafiiska kiigaana kiyaali la ka qabaday barnaamijka way ba kala ku qaaday ku hayeen ururka Dedo salaamada By Women qayb ku haytay barnaamijkaas oo ku hadalay environmentiga xildhibaankana qayb ku hay kuna mid hay macallimiinta casharada ku biyayeen salaamada meel raayis macallimiin kala cashar ku biyayeen way ba dareer doona muddo 3 maalmood xildhibaanka daahfur insha Allah way ba rajeeyeen intii safayda suuradaninka dhamaado doono asxaabta dhamaantiyo sidii waqti shan ku horeen gudoomiyaha ururka horumarinta deegaanka ee Dedo Maxamed Abuukar waliba uusan ku mahanagay macallimiinta biyaha in tababarka soo sheegay in maalmo socdan tababarka ku faa'iideysan doonaan ba nin suurta galay tababar oo ku saabsan beeyada taasoo iska jarto nadaafada deegaanka iyo dhirtii iyo xoolaha iyo dhinac walba beeyada taabadaas tababarkaas una ururka horumarinta deegaanka Dedo iyo waliba Oxygen darsan aqoonyahanada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo kumida xildhibaan Idris Abdaktar oo xildhibaan federaalka Soomaaliya oo ku jeedo koonfur galbeed yaruntii mayba ku codsanay in tababar beeyada imisa deegaanada oo kala nasiyaan mayna qayb isku lahaynay ururka By Women Network Association tababarkaas geekan in bilawday waliba in dareero doona muddo 3 maalmood geek waliba in furay tababarkaas xildhibaan Idris Abdaktar saasoo kale asharada qaybtiskooda in bilawdeen waliba ma nagaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala saasoo kale ma nagaana dadkii oo waqti shaqaaliga ah in horeyno oo tababarkaas nasiyayaan si free ah nasiyayaan iyo walaalaqan qaaliga By Women Network Association oo yoon team giibin isku qaadanaysa soo kale geekiyon hulka keesha way tababarka 3 maalmood in ka dareero doon marka eedida aan ma santiin dhamaan anti markaas tababarkan meel raay By Women Dedo 3 maalmood wala rajaan anti walbadan ku faa'iido doona deegaanada walbadan ku bedelo doona insha Allah ta'ala anka dambeyntii waliba meelaseetu ku hadlay xildhibaan Idris Abdaktar oo kumida mudaniyalka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waana kumida qabanqaabayaalka tababarka kan soo ana faahfaahin ku bi muhiimadda yeelata in la ilaaliyo deegaanka qeyr alla si gudoomiyaha deegaanka iyo meel raay wala nooc codsaday in uu tababar siina ka saabsan deegaanka hadii la wala iska jiray walbadan casharada uu siyaani geek wala kumida deegaankaas kumida wala kumida meel raay dhirtiya kumida wala kumida beerogyo kumida wala kumida xoolaha kumida lamada bari oo siin roogna casharadaas aasiinayaan communication skill environmental xogo barashada botany the study of plant geedo wadankan ka bawlay hadii aad barata wala way faa'iido keenata iyo meel raay waxyaalo ka saabsan beeraha iyo xoolaha Cabdikariin Maxamed Nuur telefishinka raadiyaha koonfur galbeed Baydhabo.